kadib markii uu waayay lugtiisa midig cali waxa uu la kulmay dhibaatooyin kala duwan kuwaasi oo mararka qaar mugdi gelin jiray mustaqbalkiisa balse cali ayaa waxa uu qaatay go'aan cajiiba kaasoo noloshiisa bedelay ugu dambayn kana dhigay mid samaysta waddada uu rabo inuu u maro mustaqbalkiisa 2009 ayaa waxa uu ahaa sanad cali noloshiisa xasuus weyn ku leh maadaama waxyeello ka soo gaadhay qarax dhacay uu ku waayay lugtiisa midig sanado badan oo muruga ah kadib waxa uu noqday mid noloshiisa bedelay cali waxaana uu sameeyey arrintan oo ah mid cajiiba isagoo bilaabay inuu tago goobaha jimicsiga si uu u ilaaliyo caafimaadkiisa maadaama uu u nuglaa xanuunno badan sida macaanka balse cali oo ahaa mid waayay lugtiisa midig ayaa bulshadii uu la samaynayay jimicsiga waxay ku noqotay arrintani mid la yaab leh mararka qaarna waxa uu bulshada kala kulmi jiray niyadjab badan niyadjabkan jimkala kula waxaa ka mid ah aniga waxaan bilaabay January 2019 dadkii maalintaas anigii dhahayay waraa nin qofkan lagu ka go'an yahay waa caato jima samay karo muxuu noo dhibaa muxuu birta noogu dhimaa ayaa wuxuu ilaahay subxaanahu wa ta'ala qadarayna ayaga coach noqdo ay maanta aniga kambanigeyda qaarkood ay kalinati ay yihiin marka marnaba kama niyad jabin kama niyad jabi doono kadib dadaal badan cali waxa uu haatan sameeyaa jimicsiga maalin walba sanada kadibna waxa uu haatan noqday macallin ardayda ku tababara qaabka ugu wanaagsan ee jimicsi loo sameeyo tanana waa guul kale uu gaaray balse sanada ka hor mugdi weyn uu kaga jiray cali ayaa haatan waxa uu fariintan u diray dhammaanba dadka qaba baahiyaha gaarka ah waxaana sidan isu bedelay fikirkiisa dhalinyarada disability-ga ha noqoto mid gacan ka go'an ha noqoto mid lugaha ka go'an ha noqoto mid indhaha la ha noqoto mid dhigaha la waxaan kula tarin lahaa laba shay intaad haysato qofka adaa ugu horeeya number 1 in Allah subhanahu wa ta'ala u dhawaato oo caabudo number 2 inaad maskaxdaada ka shaqaysiiso qaybta qodobka saddexaad ku jira waxa waaye yeelo qorsho xagee u socotaa qof kasta dunida horumarka gaaray waqtigiisa uu ka faa'iideystay qorsho u samaystay wax orod lagu gaar ma jiro nolosha aad arkaysa iyo succeedka lagu sheegana waa intaas maalin wax qabo qasab ma inaad guuleyso ujeedada weyn ee cali arrintan uu bilaabay ayaa ahayd inuu badbaadiyo caafimaadkiisa maadaama uu jirka qofka bini'aadanka ahi uu u baahan yahay jimicsi cali ayaa haatan waxa uu sameeyey shirkad u gaar ah taasi oo iibisa alaabaha jimicsiga la talintoodana siisa dadweynaha ururada caafimaadka ayaa warbixino kala duwan oo ay soo saareen waxay kaga digeen jimicsi la'aanta waxaana ay warbixinahani ku sheegeen sidoo kale in jimicsi la'aantu ay keento xanuuno kala duwan sida wadna xanuunka macaanka iyo qaar kaloo badan muhiimadda muuqaalkeenna ayaa haddaawade inaad weli haysato fursadaad ku bedeli kartid noloshaada kuna xaqiijin kartid hamigaaga adoo ilaalinaya caafimaadkaaga sheekada cali ayaa waxaanu ka baran karnaa in xaalad kastoo aad ku jirto nolosha aad ku xaqiijin kartid hamigaaga haddii aad dadaal badan samaysid ku xidhnow Ayuub Show lana soco muuqaal cusub